wuxuu igu yidhi sisar wax lagaa helay kansar oo waxaa tahay positive isla markii ilaahay kelmaddu afkay kusoo rogay waxay ahayd alxamdulilah rabbi alcaalamiin way eegay tayadeeda yaraa markaasa markii way oyday. halkan waa hoyga ay magaalada Hargeysa ka degan tahay maama Jamiila Cabdi Caaqil Yare oo ah maamo ka bogsatay ee xanuunka kansarka isla markaa ay ka bogsatay waxay maamadu sheegtay inay aasaastay foundation ama hay'ad ay ugu tala gashay inay ku caawiso dadka la nool xanuunka iyo waliba dadka kale ee taagta daran ee u baahan in la caawiyo. xanuunkii igu dhacay kansarka ahaa alxamdulilah wixii igu dhacay 2014 bishii 11 November horaanteedii waxaan ahaa dadka dhakhtarada aaminsan kana soo shaqeyn jiray Holland dhakhtarnimo aan la soo shaqeeyay maadaama dadka ahaa waxaan dadka waraaqaha marka loo soo tuuraan qiimeeyay dhakhtarada waan tagay dhakhtarkii kadibna waxaan iska qaaday sawirkii caadiga la iska qaadi lahaa qofku markuu gaaro da week kadibna waxaa lagu soo celiyay inaan soo noqdo markaan ku noqdayna haddana waxaa laga qaaday maxaa la dhahaa CT scan waxa ah kale waxay igu yidhaahdeen dhakhtar baa ku arkaya dhakhtarka markuu arkayna waxaa laga qaaday dheecaan iyo test yar marka waqtiga aan meesha aan joogo waa qaybta kansarka oo breast kansarka la yidhaahdo laakiin alxamdulilah marnaba niyadeyda qalbigeyga ilaahay ma ku ridinba inaan meesha xitaa joogo waayo maqaayad baan ka shaqaan lahaa aan maskaxdeeda howl kale ku jirtay markii testiyada la baaraya marka aniga waan dareemay inaan 2 calaamad ku dhex jirto jirkayga markii la qaadayay marka naagta waxaan ku yiri calaamadahan mid waa dhaqaanaa weligay baa ka soo baxay Soomaali iga soo baxay labada dhinacba marka ama waxaa ka shakisan tihiin may baa la yiri iska fadhiiso waraaqa fayl ah baa la soo dhiibay leeyahay waxaad tagaysaa qaybta surgery-ga marka kelmadda surgery la yiraahdo wax badan weeyaan oo qalliin bay galaysaa wixii ina dhakhtarada la aadis aragtaan baa dhici karta waxyaabo badan marka maba gelin ba qaybtaas inaan tagayo iska soo noqdo iska faraxsan gurigeyga imid. calaamadaha isku aragtay maxaa kamid aniga calaamad horta hore markaan dib xasuusto ilaa waxay ahayd bishii 7 misafirla 8 culays wuu jiray dhinaca midigta marka ilaahayba ima saarin inaan ku fikiro waxa iska dhaadhiciyay muruqa ama daalkii hawshii badnaa aan hayay inay tahay laakiin labada dhinac markaas xoosa dhinacani aad u culays ii ahaa marka imaada aqalkaan siraahdo nasana waxaan dareemi jiray culays iyo barar marka bararka maadaama kasoo bax u ahaa labada dhinacba waxba kama dhiganba laakiin waxaan u maleeyahay haddaanan tegi lahayn testigaas inuu dilaaci lahaa xagga laga soo baxay labada dhinac halka iyo halka bil hore Soomaali markaan joogay markaas ku cadeey markaas waxay ahayd 2014 soo maahan 9kii ayaan tagay mar aan ku idin kasoo baxyadan way xanuunayaan wayna kuusan yihiin in la iga baaraan rabaa markay baareen waxay yidhahdeen wax aad leedahay ma jirto waxna hadda anaga waxba kama qaban karno maadaama xanuun uusan jirin marka 5 sano gudaheeda kusoo koray already xanuunku yimid markaasuu ku yimid muddo kadib xanuunkii sideed ula tacaashay markii lagu sheegay dhakhtarkii ku cadeeyay markii la ii sheegay 14 waxa la ii sameeyay dhakhtarkii qali lahaa already faylalkiisii wixiisii qaybta surgery-ga waxaan soo kaxay markii hore keligii baa waxaan soo kaxay inaan dhalay oo markaa jaamacad dhiganaysay waan soo raacnay waan nimid maqsinkii baan galnay marka maqsinkii galnay dhakhtarka ii yimid dhakhtarku waa Libya muslim ah iyo naag cadaan oo neersa sararta already faylka uu wato wax dhow oo qoran yahay intuu cabirku leeyahay sida loo qali doono waxa dhan oo u diyaarsan yahay laakiin aniga subxaanallah waxaan salaada ma aqaan maskaxdayda kumaba dhacaysaba xitaa meeshan joogo waa meesha aan arkayo laakiin maba galayaba wuxuu ina maskaxda gashaa maba galaysa waxa iska qof mashquul iska ah markaan soo fadhiisay sararta saxal yiri waa la ibaaray already marka dhakhtarkii gabadhu indhahay contact ka sameeyeen mar alle markii contact ka sameeyeen marka gartaan waxba jira aan fahmay oo iska soo kacay soo fadhiisoo dhahay waa soo fadhiisay kursiga wuxuu yiri waa maalin jimca marka waa 11 iyo 45 minute oo aroornimo wuxuu yiri sisar wax laga helay kansar oo waxa tahay positive
isla markii ilaahay kelmad afkay ku soo ruuxeed alxamdulilah rabbi alcaalamiin way eegay tayadeeda yaraa markaas markii way oyday astaqfirullah marka waxa weeyaan yacni qof kastoo bini aadan ah xanuunada qaarkood marka la sheego waxa weeyaan shock marka aan ma neexin alxamdulilah laakiin wixii ka dambeeyay markaan dareemo aan soo xasuusto waxyaabo badan alxamdulilah marka yarti markay oysay madaxuu ka salaaxay wuxuu yidhi waxba ma ahan waa qalinkeed waa loo diyaariyey waana wax sahlan iska soo baxay markaan soo baxay waxaan telefoon ku garaacay masaajidka xiriir la lahaa magaalada qoladii aan la hadlay waxaan ku idhi nin waxaan la hadlay la yidhaahdo xasan aan isku fiicnayn xasan xaandi waxaan ku idhi xanuunkaasaa laiga helay salaada markaad tukanaysaan sujuudaa laigu duceeyey waa jamxo ninka taleefonka ka dhacay waa qof shalay shaha kuu shubaysa saaka ee xanuunka marka oday kaloo khaliif la yidhahdaa ka qabtay maxaa dhacay markaasaan ku idhi saasaa dhacday salaada jumcaha iigu duceeyey waayuu yidhi alxamdulilah salaada laigu duceeyey waa soo baxay gurigaas ka imid markaas aan xoogaa welwel aan bilaabay inta hore dhan ma welweli jirin marka familigii iyo manaan qarin aniga isla markii waan sheegay dadka badankana way qariyaan laakiin lama qariyo sababta marka la i weydiiyey maxaa aad u qarin weydeen waxaan ku idhi qof kastoo muslin ah ama gaal markuu maqlo xanuunkan isagaa kuu ducaynayba khalaas marka dhakhtarku wuxuu ii diyaariyey in la iqalo January waayahan eri aska soo baxay niyagii wixii in la iga qaado isla markii waxaan ku fikiray marka wax la yidhahdo second opinion waa inaa raadisaan dhakhtar kale inay iskhilaafaan dhakhtarka weyn xaggiisa dambe xafiis ku leeyahay markaan niyagii waxa iska qaaday ayaa waxay aragtay naagta waraaq aan wato oo magaca dhakhtarka aan la kulmi doono oo private-ka ah way aragtay xitaa magacii anaa arkay magacii anoo haysa waxaan arkay waraaqaha dhiigga laga qaadayo qalliinka ragga ay qalaya inay yihiin nin ciraaqaya iyo ninkii aan la kulmay iyo nin professor ingiriis ah waxaan ku magacaan iyo magacaan isleeyihiin way egtay xitaa haa waxaan waa ninkaan ugu tagay inaan ka raadsado second opinion wax la yidhahdo yacni inaan wax kala weydiiyo inay waxaan isleeyihiin waxay ku tiri uma baahnad already hadduuba isagu ku qalaya already wuu ogyahay waxaan wax jira weyaan waxba lacagkaas kaga khasaareen private waayahaa nin waa iska soo baxay markaan soo baxay gurigan imid waxaan la hadlay inama talyaaniga joogo ciyaalkayga hore adeerkood ah oo gabadha isku hooyana ilma adeer ay yihiin inamadii inankiiba igu yiri imo baadaba meel la yidhahdo talyaaniga dhakhtar Roma ka imanayaan ku ballamanaya professor ah sidii aan markaa waxaan la hadlay qoladii dhakhtarkii qalin lahaa waxaan ku idhi caruurteeda ma wada joogaan marka qalinka dib loo igu dhigi karaa haa bay yidhaahdeen waan kugu dhigaynaa waan soo baxay talyaanigaan tagay baadaba dhakhtarkii aa la ii ballamiyey kan wuu yimid aniga iyo walaa gabadha saaxiibnahay iyo inankayda inanka markaa aan u tagay waa isaga waa dhakhtar kuwa dhiigga baara oo familna aan nahay isla soo kornay marka aada emotion waan dareemaya laakiin aniga waxaas oo dhan maskaxdeeda maba ku jirtaba alxamdulilah isla markiina sadaqooyinkana aadan ugu dadaalay sadaqan aada u bixi ahaa waa la ibaaray marka dhakhtarkii baaray laftarkiisana iska qoslay aada u qoslay marka waxaan isleeyahay xanuunkan magaciisa iyo dadkan iska qoslay habiga ah walaa maba lihidba waxa ninkii markaas wuxuu saaray qalb CT scan la yidhaahdo oo wadnaha keliyaha beerkaaga lafahaaga inta dhanba soo sheegay intuu xanuunku yahay waan ka soo tagay CDBC wuxuu igu yiri walaashaa dhib ma laha haddii rabto 3 week mar ay wuxuu imaanaysaa Roma waxaa lagu shubayaa wax la yidhahdo chemotherapy 6 goor marka waa 6 bilood markaa waxaa laga yaabaa inay meesha soo yaraato inay barar baa ku jira xoogaa inay soo yaraato kadibna aan ka qalo bes waxaan iri masaas ahaa qalinkii la ii diyaariyey ingiriiskan wuxuu ahaa in la qalo ina aniga marka aniga aan doorto in half la gooyo ama isaga dhan la gooyo waa adiga laakiin stageku yahayna waa 2 ilaa 3 buu u dhexeeyaa sokorna waan leeyahay sokor aada xun waan leeyahay thyroidna waan lahaa markay jaraan kuwani ayaa waxaa lagu siinaya dawadan la yidhahdo kiimaha
oo la qoondeeyey ilaa 6 goor marka qalliinka kuuma sheegi inta dawaa qaadanaysa laakiin horta qalliinkaa ka horeynaya marka waxay noqotay sheekadii ingiriiskii inuu qalo uu dawada isiiyo 2 dawaa jirta mid lagugu shubayo iyo mid lagugu gubayo mid waxaa la dhahaa chemotherapy mid waxaa la dhahaa radiotherapy okay 3 waan qaadanayaa haddaan talyaaniga tagana intii waan qaadanayaa laakiin waxaa horeynaya dawada waxaa la axsan magaaladaadii iyo ciyaalkaagii iyo ehelkaagii iyo reerkaagii iyo yani mujtamaci soomaaliyeed muslimka lagaa yaqaan adoo jooga maxaa maalba diyaarad usi raacaya waa isku mid wixii waa iska soo noqday 2 rakac salaada iska tukaday meeshii ilaahay ugu aadiyo waa la hadla qoladii waxaan ku yidhi diyaaraan ahay hadda waa imanaya sagaalkii february qalliinka la ii diyaariyey waxay ahayd adigu 6 waxaa soo xarooday 4 dhiigii wixii kale waata la iga qaaqaaday maalin muruga leh because qof sokor qaba oo qalliin weyn galay alxamdulilah ilaahay sokorteeda maalintaa uu iska riday markaa meeshii tagay sokorteydii la cabiray waxay ahayd 6 marka dhakhaatiirtii waxay eegeen faylkaagii hore marka nin ciraaq ayuu ahaa ninkii markaa ii diyaarinayay wuxuu yidhi intaasaa arkayni sokortaada aaday u sarreysa laakiin aada u nasiib badan tahay because qalliinka geliso qalliin weyn marka dhakhtarada ku qalayna waxaa jira qolo special sokorta ah oo lagu diyaariyey marka alxamdulilah waayahaan eri iska weysaystay oo as diyaariyey kule qalliin markaa gelaysa waxa weeyaan ama waa geeri kale qofku u dhimanaya laakiin dee kala xanuun badan adi waa iska tukaday alxamdulilah weysaystay marka waxaa aada ugu sii farxay dhakhtarka qalaya waa muslin ka kale caawinayana waa ciraaq waa muslin iyo ninkii profesorka ingiriiska ahaa waa galay qalliinka markaa waxay ugu talagaleen saacad iyo bar say igu sheegayeen markaa laakiin alxamdulilah qalliinkayga wuxuu noqday 50 minute ayuu ku noqday waxaan soo baxay 7 5 minute meelaha ka dhimantan liga soo saaray adi 7 ruuc already suntu iga baxday marka saacad dhakhtarkii soo ku istaagay waxaan ku yiri imsadii waa 7 ruuc mal dhameeyaha wasoo u dhameysay naas dhan marka aan dareen ma lahi dareenka meesha la qalay ma dareemayo ilaa hadda ma dareemaba wuxuu igu yiri in way dhamaatay alxamdulilah wax ka san way okay sunti dawaq yar baa igu jira waa la isoo kaxeeyey marka la isoo kaxeeyey ayaa waxaa la keenay ward qof walba la seexiyo naagaha uurka leh naagaha walaca dadka waaweyn wardkaas marka albaabkan kasoo gelay waxay ahayd qoorta iyo madaxa neck and head marka waxaa iri maadaa wareersan kansar baa lagaa qalay sidee wardkan lagu geyn karaa adi markii dambe waxaa ligiyay qaybtii kale marka xoogaa niyadda ii degtay waxaa marka alxamdulilah wax serious ma laha wax islaha meel special iyagu leeyihiin oo xirxiran oo markaan dadka kala arkay waa iska joogay habeenkii alxamdulilah aroortii la yimid dhakhtarka marka dheecaanadii wixii ay ka caaga geliyeen meesha ay eegeen waxay yiraahdeen waa fiican tahay alxamdulilah dheecaanka sidii rabeen uu yani qoyaankii la rabay inuu soo baxo uu soo baxay markaasuu ii sheegay naaska dhan inay jareen waayo saacadda u dambeysay waxay ahayd ama haaf ama isaga dhan marka waxay dhahdeen annaga marka decision waxaan ku gaarnay maadaama sokor aad leedahay inaa isaga dhan caruur maad dhalaysa qasab ma ahan yani ma u baahan tahay maya marka wuxuu yiri naaska waan jarnay marka waxaan ku xisaabtay in biro lagu qabtay marka wuxuu yiri biro laguma qabanin laser wax aha jira lagu xidhayo lagu sameynayo waana fiican yahay dhiigaagii everything waa alxamdulilah ilaa beri iska joogaysa waayahaan iri alxamdulilah wax dhib ah marka ummadda maasha allah magaalada ehelkii asxaabtii ilaa dhakhaatiirtay dhahaan naagtan ma madaxba
waxaana ummada kala baxaysa waa waxaasna wax aad akeensatid marka mujtamaca aad u fiican tahay ummadaaduna waxay ku istaagaysaa markaasoo kale marka ummadda waxaa uga baahanta keliya waa duco adi maalinta saddexaad aa liigu yiri waad bixi kartaa aqalkaagii marka anaa diiday waxaan ku ma baxayo qof dhan naas laga jaraan dhahay sokor leh marka ma baxayo marka wuxuu igula taliyay dhakhtarku intaad bakteeriya kala qaadi lahayd axsan gurigaaga kuu roon iska tag waayaha niri waan soo baxay neersaa guriga kuga imanaysa gurigii baan tegay alxamdulilah marka intaan la qalin laakiin waxaa lagu leeyahay aniga imay sheegin laakiin yartayda hooyada ah guriga situationkay weydiiyeen waxaad moodaa dadkan islaamnimada inay nooga horeeyaan iyo naxariista waxay yidhahdeen maqsinkeeda intii oo labada cashay dhakhtar ku jirtaa meel kale geeya ka bedela maqsinka yani ha noqdo guri ay ku nafisi karto qofku waa wax badan fikirkooda qofka tvgeeda ugu rakiba waxaan u sameeyay waa gaala dhaqankooda bay iga markaa wataan waa dhammaaday habareer ha muddadii intaa ka dambeysay waxaa la qalay 9 February 2015 xanuunkan wuxuu ahaa November markii la qalay 2 bil kadib qala ii yeeray dhakhtarkan la kulmay kale wuxuu igu yiri markaan qalnay testi waa la beeriya ayadii dhacanka marka waxaa noo cadaatay horta aan kaa dhex galay intaan qalinka lagu samaynin ayaa waxaa la ii diray meel kasta oo dhakhtarka waxaa jira ee lagu dirayo ilaa xididadaada la baaraya keliyahaaga beerkii lafihii meel ay ku qoran tahay nuclear ward nuclear waa suntan weyn meel loogu talagalay ilaa xididadaada soo saaraysa lafahaaga yani hadduu gudaha ku jiro hadduu dhuuxi galay hadduu dhiigi galay hadduu dheecaankii galay hadduu meel kale ku dhuntay inay raadiyaan waxaas dhan wada maray alxamdulilah kulli waxay wada noqdeen markaa negative bas wuxuu igu yiri tasiyadaadii hore la baaray qaliinkii hilibkii iyo wixii dheecaanka baarnay stagekaaga weli ana ma weydiin stageku yahayba intuu cabirku yahay ma weydiin waa 2 ilaa 3 ayuu ahaa aadan u fiican tahay waxaa ku haray kaliya anaga qaybtayda waa ka dhamaatay qaliinka waxaa ku haray qaybtii dawada marka bisha March waxaa la kulmaysaa qoladii kale oo la yiraahdo Macmillan waa kuwa kiimaha sameeya waayahan iri waa soo baxay alxamdulilah bishii waxaan maleynayaa saddexaad waxaa la kulmay qolada marka waa professor wuxuu qeexayaa inta dawo intii lagu qalay iyo systemka jirkaaga iyo waxaaga inta dawo u baahan tahay dawada la yiraahdo kiimada marka wuxuu ii qoondeeyay 6 goor inaan qaato bishiiba mar ayaad qaadanaysaa wiigan baa lagu qalinka kadib haa marka dad badan baa waxay ugula tirino dadkan u badan yahay oo khalad aad uga fahansan yihiin kiimada qaadan kiimada waxa weeye waa lagu dhimanayaa kiimada waxa weeyaan timihii bay daadinaysaa kiimada waxa weeyaan sidan bay ku yeelaysaa Soomaaliya horta qalinka kama baqaan kiimada aad uga baqaan kiima markaa xasuusto horta hore waa mucjiso kale laakiin alxamdulilah marka wuxuu igu yiri kiima qaadanaysaa 6 goor markaa dhamaysidna bil isniin ilaa jimco waa bil waxaad qaadanaysaa electric yaa la marsiinaya meesha la qalay waaya laserka waayahan iri qolaa la ii gudbiyey inan baa ila kulmay marka neerisa buuggiibuu isiiyey ballamadii ii diyaariyey marka wuxuu kuu sheegayaa wax alaala wixii dhibaatay fakta ee leedahay dawada ayaa lagu sheegayaa cidiyaha dhacaya afkuu ku bukan karaa meel kasta qoyana way bukaan kartaa tabarka cabirka jirkaaga hoos u dhici karaa ilo dhiig baa baxaya aanad ogeyn adigu ayaa baxaya timaha way daadanayaan shaki kuma jiro marka timaha way badan yihiin kana dhici kara mid kasta dhici kara laakiin in the future markay dawad ku dhamato inay soo noqdaan baa dhici karto laakiin waxay u baahan tahay marka adkaysi bas waayahan iri aniga marka alxamdulilah marba qalbigayga waxaa ku jiray alxamdulilah wixii ilaah keeno waa hadiyad marka la weydiiyo waxaan waa hadiya ilaah isiiya alxamdulilah ha horta maalinta wixii businesska ahayna waqtigaasaan ma joojiyey go-aan ka gaaray marka dawada marka la ii bilaabo meesha dawada lagu sameeyo oo meel hortalo kansarka sidiisaba dawladda ma caawiso yani dawladda way caawisaa iyadu ma laha wax iskale qolo la yirahdo Macmillan waxaana kharashka bixiya qof allaale qofkii business leh waxa yaa caawiya
waxaa caawiya kuwa khamaarka ciyaara oo waaweyn yani lotriga bakhtaalsibka baasha la yidhaahdo marka la ciyaaro qofka milyan markay helaan 300 meesha ku bixiyaan marka waxa weeyaan serviceka ay sameeyaan dhakhaatiirta caadiga normalka isbitaalka laguma sameeyo way ka sarreeyaan aad uga sarreeyaan aad dadka yani soo dhaweeyaan ay u qanciyaan meesha lagu qaadayo kuraasta taalo sida lagula dhaqmayo inta wixii ka dambeeyay aad markaan dawadii tii kore maan dareemin tii labaad marka dareemay markaan seexday inay timihii raacayaan sariirta laakiin dawada xanuun ma laha laakiin waxa xanuunkeeda waxa weeyaan waa adigoo walac ah naagtu markay walacdo oo marxaladda ugu daran ay joogto kala weeyaan waxa ku dhibay urkii waxa ku dhibay cuntadii waxa ku dhibay udugii waxa ku dhibay hadalkii waxa ku dhibay wax walba sanqar ah marka xanuunkaas adkaysi badan kaa weerarna xanuunkan maan arag lixi ahayd waxaan qaatay 5 bilood waayo marka anigu qaato way iga xoog badnaatay in yar marka maanta aan soo qaato 2 maalmood oo adkaysi baan leeyahay cuni kara maalinta saddexaad ilaa iyo wiigi bar wax ma cuni karo marka ciyaalka isku dayay hooy dhakhtarkan ku yeereen haddaad wax cunin siiba gabadhayda yar maasha Allah karoota iyo timir iyo waxba la isku shiidaya si jirkaygu marka u dhicin marka madaxa iyo lugahan ka dhaxmoon jiray aad uga dhaxmoonay waa xakeeniya tabartii ka dhacaysa marka dawadani maxaa tahay dawadani waa waxa la yiraahdo tan guryaha lagu meedho jafel oo kale weeyaan jafelkii ma laakiin waa jafel loogu talagalay jirka inay dhaqdo wax kale ma sameeyay jirka meel alaale meeshu ku harharay luq ah oo daldalool ah in soo dhaqo weeyaan waxyaabaha nuclear oo kala laga sameeyaa marka taasi ku jirkaaga way gubaysaa marka dhiig cad ka hoos u dhacay tabar ma yeelanaysid marka waxa la siiyay dawooyin ah anti sickness ay dhahan ka hortagaya xitaa aan dawada marka hadda isbitaalka agtiisa aan maro aan urkeeda dareemo waa mataga ilaa hadda xanuunkaas buu ahaa marka arkay timihii dhacayaana waan iska wada xiray anaga horta alxamdulillah dad muslim xijaaban anahay waxa daran gaalada waxa kale farxad anay ah marka meesha dawada tago dad ba iga horeeya isku dawaanahay haddana dhaqso ii dhamaataan ilaa ninku yiri adiga qof special ah taan maleeyay dadkii fadhiya ugu timid waa tagtay adigoo happy ah oo qosliyo waxba baruku haynin waxaan dhahaa alxamdulillah ilaahay iimaanku isii waa iimaan adoo dawadii markay ii dhamaatay tii shanaad oo arkay dhakhtarka inay aan jiifkaygu badan yahay dad waxa jira qaataa oo ku shaqeeya shaqo tagay oo shaqo laga sugayo laakiin cidba shaqo iga sugaynin laakiin iga xog badan jirkayga ku xog badan dadka isku caafimaad ma aha waxa isku awood ma aha wuxuu yiraahdaa lixaad kugu ma samaynayo way already jirkayga ku xog badnaatay marka dhowta kaliyahaaga iyo wadnaha inay wax yeeshaan ka baqi intaas ku ekow marka waxaan ku yiri ana dareemay inaan gilteen dareemay inaan waxaygi ma yiri inta kugu filan waa 1 iyo 2 iyo 3 waa qaadatay خلاص inta kale waa lagu kofar gareynay waayahan iri 2 wiig naso kadibna waxa lagu bilaabay tii kale laserka baasha la isku gubay marka laserka aad ka hor mar aan caafimaadka holku baranayo ayaa waxa arki jiray marka lagu sameeyo qofka feeraha jaba waa dab sida loogu sameeyo feeri jabaya qofku ama soo dismaya marka walwala iga hayay waan imid balantii hore markaan imid meeshii ayaa la igeeyay sariirtii alxamdulillah laakiin kiimaha saas uguma baqayna laserka uga baqay laserkan kasii baqay marka waxaan isku quflay in qof raaco sharcigan waxay tabarto in qofku raaco dawada marka qaadanaysid iyo marka ka qaadanaysid waa in qofku la socdo alxamdulillah tayar bay la socotay waa tagnay way igu sameeyeen waa computer ku dul maraya leed yaro blue ga la arkayna adiga meeshii nabarka uu qabanaya marka waxay igu sameeyeen bahal yiraahdo tattoo xinaha madow marka waxaan ku yiri aniga waana igu yiraahdo adu muslim tahay laakiin waa ku qasbantay inaan ku sameeyno marka weydiiyay waay waxay yiraahdeen in mustaqbalka haddaan u baahano maraan raadin karno meeshaan ka bilownay way noo calaamad islaanaysaa wayna ogolaataa marka waxaan wax walba ilaahay yani caafimaadka ka weyn waayahay baashi igu sameeyeen marka makiinadu waxay qabanaysaa labada meel lagu dhibciyay in bedel maraysa meel kale ma tagayso adiga waxa 10 minutes 10 daqiiqo qaadanaysaa waa iska soo baxay ko in yani wiig hore saasan ku dhameystay wiig labaad waa dhameystay
wiigii saddexaad jirkiyaa soo gubanaya ma arkaysa laakiin soo gubanaya markaan arkay dadkii aan isla gelaynay oo qoortoodu wada gubatay waa gaalo isku skiin ma nihin way naga khafiifsan yihiin haddana aan arkay dadka cunaha u ka hayo dawada marka la siinayo waxaa lagu quflaa bahal maaska ah oo laba iskurub halka lagu xirayo waxaa eri naftan adi malihida dadaa basaan loo xirxiraayay ada sarinta lagu saaro bahasha ku dul maraysaa maxaa gabadha yaro cadibaysa imtixaan bay lahayd iska tag wiiga anaa tegaya hooyo taa haddii lagugu sameyn soo ma ogolaateen hal aad ku jiraysa 20 minute 30 minute ku jiraysaa marka waxaan dhahay alxamdulilah habar hadan aan kugu daalin alxamdulilah tiina waa dhameeyey markaan tii dhameeyey waxaa liigu yidhi waa fasaxan tahay kiniini baa lii qoray markaa 5 sano inaan qaato ah oo 1 miligram anhar salsol la yidhaahdo kiniinigan waxaa loogu talagalay hormoniska inuu qofka maadaama qof weyn ahay inuu dhibaato keenin cilada xabad 1 miligram 5 sano sanad kastana hal mar inaan tago ay controlaan controlka marka kale ah ana controlka waxaan ka aaminsanaa markaan tagayo sidii marka kiimada la igu shubayo ka hor waxa la iga qaadaa dhiig kadibna waxa la yiraahdaa kaale balanti kale marka xasala dhiigi baa laga qaaday meeshii baa la soo wari kan maya dhakhtarka markaan la kulmo horta alxamdulilah dhakhtarkaas aniga aan joogo magaalada Northampton dhakhtarka aan oo isbitaalka magaalada ku yaala General Hospitalka inta ka shaqeysa qaybta kansarka 8% waa muslim masha Allah Bangladesh yani Sri Lanka Pakistan Arab dadkaas u badan horta alxamdulilah inta la kulman ayaga weeyaan masha Allah kadibna waxaan sameeyay nin baan la kulmay muslim ah wuxuu igu yiri in maxaa la yiraahdaa jirkaaga maxaa dareentay waa su'aal bas markaas aan ku soo dhiig laygama qaadayo oo lima sababay yiri waxaaga dhan way dhamaadeen wax dhib ah dacwad ahna jirkaaga kama iman marka hadda waxaan ku weydiinaynaa oo kaliya wax ma dareentay xanuun kale ma kugu yimid meel kale miyana markaas soo baxay meel kale ma eegtay maya marka kan waan ka qalanahay kan kale qasab inaan maro weeyaan isagana testiga inaan kaamirada maro weeyaan taa waa maraa marka taa maro 7 kan imanaya dhakhtarka tii alxamdulilah asagana wili nabarkii uu ku yaala meeshani marka alxamdulilah waxba ma soo bixin adiga markaan taasan waxaan haystay ilaa iyo waxay 5 sano oo dawada socota tagaysa marka qaliimna iyo dawooyinka iyo dhamaadaan dhakhtarka waxaan weydiiyay ma bixi karaa Afrika ma tagi karaa buu yiri waa tagi karta xor baa tahay noo ducee anagana noo ducee ما بدنا جمعها نختار هذا سأرجنا ما لنا جمعها مركنين بنجلدش وذات هو وحي رسيستر فايل كاج مركان بارع الحمد لله قف كل واحد ما موقف يعني إيمان قوي اسك فرحان أهو اسك قص ليس أو أن واحد بعلس كهيم بقى لكن وحي الإيمان قويان قال هذا أما ضد مسلمين وحجرت حنوك بقى أنا أقولين ضفيرية مركا الحمد لله برير مركا تلدو يا مام الحمد لله أنا وأنا بقصدي وحلا يفسحي نوفمبر سنة كهري أي دودي لنا ما تشنت سنة فسحنا اللي يصير يري وحتى حرتها ها لكن وحويان مركا أنا حنقول سنة كلمة الإبارين هذا وحين هذا مية 6 سنة كتب يعني إيجينا وهذا سنة كسا إيجنو مركا هو الدم بانو قص بس إن الإيجنو والدواء سعتي لكن هذا إيجنو كاميرا دلوف كده علاج اللي هذا iyada ba keeni karta dabka ka soo baxay ma la arkay laakiin falaashada ka dhacay marka waxay dhaheen xor ah tahay waa fasaxan tahay laakiin waxaan talo ku siinaynaa mar walba qofku ma idhanayo inuu jirkiisa taabto ma aha meesha kaliya meel yar oo kuus ah jirkaaga dad dareentid kuus yar isla markiina toos igu ula xiriiro marka dadka waxa lagu la taliyaa jirkiina ana caruurta ehelka guriga jooga kulligood waxa sameeyay bay dhaheen jirkooda dhan baara hatta aragtay meel yar ka kuusan isla markii dhakhtarka la xiriiro marka alxamdulilah habaryaro ساسك وفسح ها وحد ريمي تمر وحبة والله بس قعنت الأم بحوجا ما دام الناس كي قنجر كلا صاري قنجر اللي صار سجال قنجر يا قعنت ويكون تا قعنت كلا وبرسنتها بيا كجرة because إلهي أمريكا قنجر هذا كل كجرة وحي نظيفيا نزيد كنا يدعي عنك تي مركب بحي قيانك يسوق ليه مركب قيانك يسوق له وحي اسمه بهالحدو شربات وكلا وبرشر كسماني يدعي عنك اسكو قبليه ayaa la sameeyaa marka alxamdulilah taasaan xidhaa tukalo gacantan iyadana intaan horaa xidhaa
markaan badanaa ma isticmaal laakiin inaan xidhay u badan tahay markaan arkay inay barartay maadaama maasha allah aada saas oo dhan qof imaankaaguna ku caawiyo oo qawigaagu ku caawiyey dadka xanuunka la nool maxaad kula talnaysa habar dadka xanuunka ku nool way kala tahay xanuunka horta waxaan kula talin lahaa dumarka yani waxa la oran jiray ewel marka qofku weynaado maaha qofka marka weynaado even gabdhaha yar hadda waa laga helay xanuunkii uu ku dhacay naasahi naasuu u baday horta xanuunkan waxa ugu sahlan waa naaska dumarka raggan xiniya waa labada ugu sahlan waxay ka sahlan yihiin cunaha waxay ka sahlan yihiin caloosha mindhicrada waxay ka sahlan yihiin babaasiirka eryadeeda waxaas oo dhan way ka sahlan yihiin marka waxaan kula talin lahaa dadka jirkiina haddaad wax yar dumarka horta hablaha jirkaagan matalan hadda waxaa jira gabdhaha caanaha hooyada naaska siisa waxay leedahay muruqyo waxay leeyihiin caano kuskuusan caanaha haddii hooyada ogta inuu ilmaha naaska si fiican u jaqaynin inay iska listo hadday lisi weydo inay dhakhtarku sheegto kiniin ay qaadato burburiya xitaa isaga hadduu haro uu keeni karaa xanuunkaas ta kale qof kasta jirkeeda inay baadho labada wiig madax ilaa kor rag iyo dumarba in la baadho haddaad aragtay wax yaro kuusan jirkaaga kuus yaro adag dhakhtarka u tag markaa advice ama nabar buu noqon karaa kasoo bax ama fiix bay noqon kartaa ama isagaa noqon karo waay bahalkana waa wax isciriiriyey oo ku bata inuu meel nabar ku kuuso infection ay gasho mana la ogaan karo marka inaan hadda waxaa maqlay Hargeysa waxyaabaha dadka cunaha u taga iyo sanka waxaa lagu degdegaa qaliin inaan lagu degdegin in aad loo baaro haddii baaritaanka garaneyn in loo diro meel kastoo lagu baari karo waay qofkii meel baa la tataabanaya xanuunkii baa ku jira wuu sii dilaacaya marka isagaa kale xanuun badan isagaa midna waa mid fida isla markii midna waa mid waqti qaata marka raggana saas oo kale waxaad go-aansatay markii aad ka ladnaatay xanuunkii ilahayna kugu wada caafimaadkee foundationkan aad maamo Jamiila u bixisay isagana information aga soo wallahi habar maalintii la yiri waa fasaxantahay waxaan nafteeda geliyey inta cimriga ka dhiman inaan dadka caawiyo caawinaadda markaa dad badan asxaabteeda ehelkayga i weydiiyey maxaad ku caawina haysataa fikradeeda marka aniga waxay ahayd ma rabo inaan yani aan sameeyo wax weyn oo gaala iyo charity waaweyn oo may Soomaali ahaan ehel ahaan qaraab ahaan muslim ahaan inaan horta ku bilaabo u dhex galo haddii wax ka helayaan haddii wax laga helo arkay in wax la wadi karo inaan sii wado 5 sano ma sameyn laakiin maalintii November ee ii dhamaatay ayaa waxaan niri hawsha waa inaan bilaaba marka hawsha marka bilowgeeda kala ah midna waa mid group samaysatid oo asal tashataan oo madax iyo wax kala yeelataan midna waa mid iska ugu dhawaaqdid marka horta tii oo dad guddi iyo waxa oo dad ila shaqeeyo waan ka hor istaagay waxaan horta inaan wax wadi karo aan eego marka arkay inaan wax wadi karo kadibna aan weyneeyo waxaan la tashtay qolo accountants la dhaho ingiriiska lacagaad bixinaysaa sanadkii 200 way ku eegayaan marka ninka uu sheegay hadalkayga wuxuu igu yiri wax weyn ma haysatid ba adigu yani January 9keeda bilaabaysaa Soomaaliya ha sanadka kale 2022 hal eego 1 year markaan eegno maxaa ku soo galay maxaa ka baxay maxaa active aad markaas lagu sameeynaya marka aday ku talaabo hadaa rabtid weyne oo charity number wax la jiro 5,000 aad bixinaysid charity lagu sameynayo international qof kasta oo cadaan ama muslim ah ama wax ama kuwa badan loo tirada ciyaara ama kuwa fanka bixiya ay markaas soo galaya marka waxaan sir marka 9 January aan bilaabay qofkii ugu horeeyay marka waxaan ku bilaabay WhatsApp oo family-gayga ah iyo asxaabtayda ah lacagtii ugu horeysay waxaan u rurnay in yaro reeb ruucaynu yaan jeclahay oo leukemia ku dhacday oo Ankara jooga ilaa $730 aan u rurinay alxamdulillah wixii ka dambeeyay asxaabtii ehelkii af corona ku wada dhacay dadkii aad u dhintay marka waan ka istaagay marka waxaan sir hawshaada waxa ka istaarta bal Hargeysa iyo Jigjiga maama Jamiila Foundation ma waxaad ugu talagashay dadka xanuunkaas mise cid kasta oo caawin u baahan hadda hadafkayga horta wuxuu ahaa ciyaalka kabaha caseeya horta hore ciyaalka kabaha caseeya waxay wataan baashan ila caalnidaha waxa loogu talagalay sida wax yar waxa ku jira aluminium yar oo gray ah xanuun buu leeyahay ma fahmeen skinkeena maqaarka uu daran yahay TB laga qaadi karaa waxyaabo badan baa laga qaadaa marka waxaan sir caruurtaana caawi oo u sameey sanduuq yar oo qori ah ko dadka kansarka qaba nooc rabaan ha noqdaan inaan ka caawin karo waa yeelka goblanka ah
aan waxba haysanin ee keligeed meel isku nool saddexaas wax laakiin qof kasta oo yani aan arko inuu baahan yahay hadda waxaan meel biyo la geynay maalin wada inan yaroo 14 jira oo muruqyada dhan ka fadhida kama seexanay haddaan waxayo waan siinayaa waxaan u sameeyey caruurta kabaha masaxa sanduuq yar baan u sameeyey insha allah sanduuq waxaan soo qaadayaa beri ama saa dambe marka sanduuqa dushiisa inaan kan ku xidho oo in la caawiyo qof kasta oo ciyaalka dadka kansarka waayeelka taas waa taas markaan sameeyaan idin tusi tan waxaan ugu talagalay maadaama aan Hargeysa joogo dahabshiil iyo saad qof kasta inuu wixii sadaqa uu ugu rido oo ku caawiyo marka insha Allah waxaan ku soo dari doonaa telefonkii iyo bangigii Europe ayaa isagana soo raacsin doonaa insha Allah marka waxaan idinka baryaynaa ummadda muslimka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummad kasta oo yani af Soomaali ku hadasha inaad caawisaan dadka walaalaheena ee ehelkeena ee inaga inoo baahan cidna u maqneen ceelna u qodneen de waxa weeye Soomaali waxay tiraahdaa waryaan ka qaadaan u qaada ina anigu albaabada idii garaacan keen anaa aan sii qaado ilaahay ajarkeeda xasanaadkeeda Allah ina siiyo